الله أكبر. الله أكبر. إلهي إنه نحرسته، إلهي سبحانه وتعالى إنه عفيه. كلمة حقها قبل أمرك الجلية كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. إلهي إنه قصده سؤال ملائكة سيدا حقها وإلهي رالك يهي إلهي إنه كتوسيه سبحانه وتعالى. قبرك إلهي هو قدقو روضة من رياض الجنة بيركم إذا بيراها الجنة إلهي هو قدقو سبحانه وتعالى. لما انقرأ بديسي يحكت ديسينا إلهي وحن قبري إنا صمر كورا إلهي إنه حجيه إلهي إنه قدم دافه. انت أنا كسو قيب كشينا جنازة إن لي ماذا لقصو قيب قاله أجر بضن بيلاده هاي إلهي درتي سقفك أوي ماذا أجر كاسنا إلهي إنه أقبله إلهي إنه قدم دافه سبحانه وتعالى. ويمد الجنازة اللي أوي ماذا أنا والله سيد النبي قال نوشي صلى الله عليه وسلم إن لقو عبرقاته وقفك مركو جنازة كسو قيب قاله أما قبرك أوي ماذا inuu ka laabto isagoo intii hore ka fiican oo qalbigiisa cabsi ilaahay ay gashay ilaahay isagoo u toobad keenay. muhiimadda labaadna waxa weeye meydka in loo duceeyo oo ilaahay naxariis iyo dhaaf loo weydiiyo innagana marka ilaahayna ku anfaco subxaanahu wa ta'ala. meeshaasna waa loo wada socdaa waa xaqa iyo xaqiiqada qof dhinac ka maraya aanu jirin. haddii meesha la tagana wax allaale wixii adduun laga hayay waa laga tegay. waxa meesha anfacaya waa caqiido saxiixa iyo amal saalix. faman kaana yarju liqaa'a rabbih falyacmal camalan saalixa walaa yushrik bicibaadati rabbih axada. labadaa rukni weeye caqiido saxiixa oo ku qotonta adduunkan allah mooye ilaah kale oo cibaado mudan inuusan ka jirin. nabiyullaahi maxamedna sala allahu calayhi wasalam inuu yahay rasuulka ilaahay usoo diray dadka inuu baro sida ilaahay u caabudi lahaayeen. camal saalixana markaas lagu daro. ilaahay waxaan ka baryaynaa markaynu meesha ka laabanno kuwa toobadkeen la laabtay iyo cabsi ilaahay iyo cibra ilaahay inuu ina ka dhigo. meydka mar kale waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu u dimi dhaafo. dhammaanteenna inta codku gaaro waxaan ka codsanaynaa inaynu wada ducayno inaynu wada cafino. adduun baa la joogay wax kasta ay soo imaan kara. dhammaanteen cafi iyo masaabax inaynu nidhaahno inaynu wada cafino ilaahayna dami dhaafayna u weydiino subxaanahu wa ta'ala. ilaahay ha u naxariisto. maanta wuxuu u baahan yahay waa dami dhaaf iyo naxariis. ilaahay ha u naxariisto. ilaahay ha u dami dhaafo. musaqiimkaan qabsanno ilaahun kalsoonaanno aan caabuda intaan kari karno aan ka baqna intaan kari karno. inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun. halkan waxaa yaalla cabdullaahi cali xasan jenaraal cabdullaahi cali xasan shalay jenaraal buu ahaa maanta horteennu yaalla. qof kastoo ahaana oo innaga inaga mida maalintiisuu mari doona. marka waxaan u rajaynayaa marka hore maalintiisanuu maray in ilaahay u fududeeyo wax imtixaan ay leedahay. wixii dembigu ku lahaana ilaahay ka dhaaf. haddaan taariikhdiisa in yar aan ka soo qaato way badan tahay waayo waqtiyo badan buu soo maray. waqti koritaan buu soo maray. waqti dowladdii soomaaliya shaqadeeda ku jiru soo maray. waqti halgan dibadda ah oo SSDF oo ahaa raggii wax dhisay ayuu soo maray. waqti ka dambeeyey oo Puntland buu soo maray ilaa maanta la soo gaaray oo geeriyooday allah u naxariiste. cabdullaahi cali mire waa magaca aabihiisu ku lamaan yahay. caraysna waa naanays ma ahayn nin carab badan laakiin dadku carruurtu magacu meel unbuu ka raaca. marka hore cabdullaahi cali xasan wuxuu dhashay 1948 kowdii January. hooyadiis waxaa la oran jiray caashe islaam faarax islaan aadan. waxay ahayd qoftii ugu horreysay oo gaalkacyo dugsi marcaamad quraan oo qof dumar dhigta ka furay quraanka ay dadka u dhigi jirtay. cabdullaahi haddii uu barbaaray markii uu gaaray waqti waxbarasho quraanka wuxuu ku bilaabay gaalkacyo kabacdina wuxuu u wareegay xamar halkaasoo dugsiga hoose dhexe sare oo ku dhammaystay.
hadduu dugsiga hoose dhexe ku dhammaystay oo secondary banaadir ka baxay kadib waxaa loo qaatay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliyeed 71 wuxuu ahaa raggii ugu horreeyay oo markii waaga hore ardayga markuu imtixaanka galo sagaalnimada secondary ka baxo la qaato waxaa loo dabi jiray dibadda dalka Ruushka ayaa waxaa la bedelay system waxa lagu diri jiray kulliyadda Kismaayo ayaa la dhisay halkaas waxa lagu talagalay in muddo hal sano leeyahay sargaaliska lagu diyaariyo si aqoontooda military oo basic maadaama akademi aadayaan iyo afka Ruushka iyo shuruucda Soomaaliya loo baro hal sano kadibna markay dhamaysteen groupka lodkoodii waxay aadeen dalka midowga Sovieti kulliyadda engineering-ka Kulbishev ayuu galay engineering-kii ayuu soo dhameeyay markuu soo dhameeyay waqtiyadii dagaaladu ka cayeen ayuu yimi 77 gadawaadigiisii ka bacdi dagaalkii guurtu maray uu ka qayb galay wuxuu ka shaqeeyay guutada saddexaad ee gantaalaha injineerka wuxuu ahaa injineer gantaalaha ayuu soo bartay Sam Kriegi ayuu soo bartay daynila ayuu ka shaqeeyay markaas xarunta guutada saddexaad ahay ka bacdi Hargeysa ayuu saldhigga ciidanka cirka ku leeyahay ka shaqeeyay ka bacdina wuxuu ka shaqeeyay Berbera saldhigga Berbera ee ciidanka cirka ayuu ka shaqeeyay in muddo 79 horaanteedii wuxuu ku biiray ururka SSDF halkaas oo saraakiishii lagu diyaariyay uu ahaa ururka SSDF dhistay xilal kala bedelan uu ka qabtay xilal kala bedelan taliya qayb waa noqday taliya saldhig waa noqday taliya qayb uu badnaa qaybaha badan oo markaas SSDF ka soo ka koobnaydna inta badan uu soo xukumay isagoo taliya qayba kadib markii 85 la xiray Abdullahi Yusuf oo hogaamiyay SSDF ee dawladda Itoobiya ee xidhay in yar kadib horaantii 86 bishii Oktoobar waxaa la xiray Abdullahi ayaa la xiray 13 Oktoobar 86 13 bisha Maarsana waxaa la xiray saraakiisheedii kaleeto oo hogaaminaya ururka ciidamadiisa iyo siyaasadaba ragga la xiray ayuu kamid ahaa markaas xirnaa muddo badan waxaan ku xirnay xabsiga markii hore qabri dahro waana lagu xiray waan ku wada jirnay kabacdi herar ayaana loo dhaadhiciyay haddana dibna waana loo sii dhaadhiciyay Shinila ayaana la geeyay oo ka mid ahaa haddana mar labaad waxaan la geeyay xabsiga booliska militariga maxaan ku raadayay herar ayaana la geeyay halkaas oo sanado badan aan ku jirnay oo naga mid ahaa oo ku jiray kabacdi xabsiga dhexe oo siin herar ayaa loo wareejiyay muddo 6 sano ayaa halkaa ku dhamaysan waxay 91 ayaana la soo daayay halkaa xabsiga ka soo baxay markii uu xabsiga ka soo baxay way soo raacnay waxaan nidhi gaalkacayo markaas oo dagaalkii sokeeyay oo ka socdo oo xaaladeedu ay meel baan marayso nin qoyay bay iska madhowro markaa wixii dadku qabanayeen baan la qabanay labadayadu asagoo maxaan ku raadayay runtii halgankaas aan soo wada dhamaysan haddaan soo wada dhamaysanay markii loo soo gudbay xogaa heshiiskii xabajoojinta oo mudug dhacay oo xogaa la heshiiyay arrintu qabowday oo kadib waxaan ka qayb galay dhismihii marka SSDF baa talinaysay SSDF marka maamulkii SSDF in dib loo dhiso oo dawlad la dhiso ayaa raggii talinayo SSDF golaheedii dhexe go'aan lagu gaaray go'aankaasna ka mid buu ahaa raggii gaaray oo golaha ahaa kadib waxaa la dhisay markaas dawladdii Puntland ayaa la dhisay raggii wax ka gaaray ayuu ka mid ahaa haddii SSDF golihii marka Puntland dawladdii la dhiso oo jabhadii laga soo wareegay wuxuu noqday waxaa la diyaariyay ciidamada Puntland oo noqonaya ciidamada oo police magaca guud ahaana laakiin daraawiish
iyo booliska saldhigyada ah oo daraawiishta waxaa ku qarsoon inay tahay militarigii laakiin marka waxaan ka baynaynay in militariga lagu calaamadiyo oo xoogaa markaa cuqdadaha iska jiray maadaama dowladda Soomaaliyeed burburay laakiin magaca guud ahaan buu ahaa darwiish rasmanna wuxuu ahaa militariga Puntland ayay ahayd wuxuu ahaa maxaan ku raadayay marka taliyihii ninba salbariga la magacaabay markii hore salbariga isagoo xilki bilaabanayo dhintay Allah u naxariisto kadibna waxaa loo magacaabay taliyaha ciidanka daraawiishta Puntland ayaa loo magacaabay xilkaas oo muddo dheer hayay ilaa iyo maxaan ku raadayay laga soo gaaro 2007 laga soo gaaro ayuu xilkaas hayay inta ka dambeysay wuxuu ahaa talooyin kala badan oo la taliye madaxweynaha u badan iyo hawlo kale oo siyaasadda iyo dowladda ku taxalluqa Cabdullaahi Cali Idaamire ilaa maanta laga soo gaaro ilaa maalintuu barbaaray markuu waxbarashada militariga ka soo laabtay wuxuu dalkiisa u soo qabtay tallaabooyin muhiim ah oo dhaxal gala oo waaweyn oo geesinimo leh oo wadaninimo leh Soomaalinimo leh oo dadaal badan leh wuxuu muujiyay awoodiisa oo dhankiisa ku soo bandhigay dalkiisa inuu u shaqeeyo dalka iyo dadka iyo diinta ayuu ku soo dhameystay ilaa maalintii shalay ahayd oo ay ahayd TC uu ku dhamaatay Cabdullaahi marka wuxuu ifka kaga tegay 2 xaas iyo 11 caruura nuuro iyo hodan oo isla dadka ah 11 kaas 4 gabdhood iyo 7 wiil wuxuu ahaa nin degan oo dabeecad maqaan oo bulshada Soomaaliyeed cid walba si wanaagsan ula dhaqmo oo cid kasta xiriir la leh oo aan cid ka qalon ayuu ahaa tabartiisa wixii ah nin dadka uu gacanta ku hayo u dadaalo ayuu ahaa ninka isbarteen nin uu sanacayn marnaba ayuu ahaa laakiin hadda Ilaahay baa la tagay wuxuu noloshiisa ku soo dhameystay halgan ilaa sanadkiisii uu timay oo geeriyooday waxaan marka ku soo ururinayaa ninkaas halyeyga oo maanta aaska qaran halkan loogu hayo ilaa madaxweynihii Puntland iyo madaxdooda wada taagan tahay cid uu ka tagay carruurtiisu waa yaryar ragayagii halgan ka tagay saan u lahayn adduunkaas marabka korka leefi doontaan baad bahas ka soo ururtay carruurtiisu waa yaryar xoolo ugama tagin hadda labada ugu horeeya waxbarashada jaamacadda inay ku jiraan baan u malaynaya inta kale waxbarashada ku jiraan cidii marka hanan lahayd oo aysan xusuusteen maqnaanshaha aabahood aysan xusuusteen ilmo aabahood goortii wax waa dhigi timaado aabahood maqnaanshaha uu maqan yahay ka tegay iyo meeshuu kaga tegay ayay dib u fiirinayaan waxaan dowladda cusub ku codsanayaa Saciid Cabdullaahi madaxweyne yahay carruurtaas in gacanta lagu qabto isaga wixii ka dambeeya iyo hadda kuwii hore oo jiray oo aan loo qaban iyo wixii ka dambeeyaba si loo xasuusto dib loogu xasuusto abayaasha geesiyaasha dalka iyo dadkii diinta naftooda u soo horay taariikhdii in si dib loo jaleeco waxtarkiisana la ballan qaado dowladduna gacanta ku qabato hadday waxbarasho tahay iyo hadday nolol tahay intaba aad iyo aad baad u mahadsantihiin iyadoo aan soo koobay inta buug baa laga qori karaa fara badan way taariikho dhaadheer oo kala duwan weeye laakiin waxaan ku soo ururinayaa hadda intaasaan ku soo ururinayaa u taagan oo gobolba taagan oo hadda Ilaahay dartii markay ka soo gudbo halkan aan ku joognana waxaan leeyahay iyagana Ilaahay sameeyay ka siiyo Allah dhiso Allah quweey Puntland meel joogto oo nas iyo guul baan u rajeynayaa iyo khayr qaburaha dhammaan darisada jooga ay meesha taagan waa magaalo dhan oo qarsoon magaaladan Ilaahay baa meesha keenay iyagana dhammaantood jannada Allah ka waraabi amiin jannada Allah ka waraabi كربلاء يشتغل الله ينوكر قاده نسنا الله ينصي بعد يسنا الله نفدمين أسأل إله الجنة في الرسخ ولا أنا بعد يسنا الله نفدمين أنت درسنا يكو أصلا دكان كان ولين عكنا هذا أنكو أصلا إذا ما با أنت خير كذا تكون أخلص الله نحرس فاتحة إلهي نحرس تهسي waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka
qof kasta isagoo meesha uu ka leeyahay ka qaadanaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ilaah baa mahad leh anagoo islaama aynu isugu nimi maanta wax waajibina ku ah isagana waajib u noqotay innagana ayna ku noqotay. ilaahay waxaan ka baryayaa xaqa uu ku leeyahay allaha ku masaabaxo. ilaahay waxaan ka baryayaa xaqa bini'aadanka allaha ka bixiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa xawlka nebiga allaha ka waraabsho. ilaahay waxaan ka baryayaa xiriirtii jannada allaha hubiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa qabriga allaha u nuuro. ilaahay waxaan ka baryayaa qiyaamaha allaha u shafeeco. ilaahay waxaan ka baryayaa su-aasha xaqa ah ilaahay ha waafaji. ilaahay ha waafaji. waxa aynu dul taagannahay waa meyd wuxuu isagu mudan yahay innagana awoodeennu dhan tahay isagana inaynu cafno ilaahna u barino weeye. marka ilaahii xaqa ahaayoo abuurtay oo maanta oofsaday ilaahay naxariistii jannada ha siiyo. ilaahay naxariistii jannada ha siiyo. ilaahay naxariistii jannada ha siiyo. ilaahay 8 janno udugooda iyo irdahooda ha u furo. 7 cadaabood qiicooda iyo qurmunkooda allaha ka dheereeyo. manfuucu quutiyo marashuu gowlada allaha ka dhigo. ilaah saasaanu ka barinay. ilaahay faatixada iyo qur-aanka loo akhriyey iyo jinaasada loo tukaday iyo xaadirka loo soo xaadiray ilaahay ha u aqbalo. ilaahay ha u aqbalo. intii u soo xaadirtayna ilaahay waxsan ha ugu bedelo. intuu ka tegey oo dhammaanteennana samir iyo iimaan allahayna ka siiyo. khaas intuu uga tegey oo guriga ula hoyan jiray guud dadku u wada ahaa oday ama hawshii haatan laga sheekaynayay intuu guriga ugula hoyan jirayna ilaahay samir khaas ah allaha ka siiyo. cawil khayr qaba oo diin leh oo duunya leh oo dad lena allaha ugu bedelo. ilaahay intaasaan ka baryayaa. cafi alliya masaabax. cafi alliya masaabax. cafi alliya masaabax. innagana cafi alliya masaabax isagana cafi alliya masaabax. ilaah saasaanu ka barinay. 8 janno udugooda iyo irdahooda allaha u furo. 7 cadaabood qiicooda iyo qurmunkooda allaha ka dheereeyo. manfuucu quutoo iyo marashuu goglada allaha uga dhigo. makaanu dugsada allaha uga dhigo. xawlka nebiga allaha ka waraabsho. xiriirtii jannada allaha hubiyo. xisaabta allaha u fududeey. xasanaadka allaha ugu kordhiyo. xaqa uu ilaah ku leeyahay allaha ku masaabax. ilaahu xaqaad ku leedahay ku masaabax. ilaahu xaqaad leedahay ku masaabax. ilaahu xaqa bilaadanka ka bixi. ilaahu xawlka nebiga ka waraabi. ilaahu xiriirtii jannada huwi. allahumma salli calaa maxamed. faatixa. generaalkeennii hore generaal carays maxamed carays oo runtii waddankan halgamayaashiisii ka mid ahaa wax weynna u soo qabtay Soomaaliya. runtii jagooyin kala duwan taariikhdiisa markii laga sheekeeyey aad arkayso nin ku dayasho mudan inuu ahaa. waxaan runtii uga tacsiyadeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed reer Puntland iyo faamilka uu ka dhintay eheladii hoose dhammaantood ayaan uga tacsiyadeynayaa. wuxuu ahaa nin qaran ayuu ahaa. runtii qarannimo ayuu muddo dheer ka soo shaqaynayay. allah u naxariisto. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaanu maanta halkan u joognaa geerida naxdinta leh ee ku timi janankii hore Cabdilaahi Cali Mire oo shalay ku geeriyooday magaalo madaxda Puntland ee Garowe. waxaan rabaa inaan halkan uga tacsiyeeyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto. guud ahaan gaar ahaan reer Puntland hadday tahay ciidamada xoogga dalka, hadday tahay ciidamada daraawiishta iyo hadday tahay xukuumad iyo shacab intaba. sababtu tahay sidaad maqlayseen generaal Saciid Maxamed Xirsi taariikhdii dheereed uu ka sheegayay jananka geeriyooday marxuumka generaal Cabdilaahi waa taariikh dheer oo uu soo halgamay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba. yaraantiisii iyo muxuu ahaa da'diisii iyo xilligiisiiba runtii uu ku dhameeyay sidoo ugu shaqeynayay ummadda. marka waxaan leeyahay dhammaan
eheladii qaraabadii asxaabtii uu ka geeriyoodayna waxaan leeyahay samir iyo iimaan isagana naxariistii janno ilaahay ha siiyo ilaahay jannatulfirdowsa ha geeyo ilaahay su'aasha ha u fududeeyo ilaahay qabriga ha u waasiciyo hawna u nuuriyo wabilaahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan rabaa hadda waxaan ka soo dareeray qabrigii Allah u naxariistay General Abdullah Ali bin Arais oo ahaa halgamaa iyo nin taariikh runtii mugle ku leh Puntland muddo soo halgamay dalkan difaaciisa iyo xurriyadiisa Allah u naxariistay ayaan leenahay intii uu qoyskii iyo eheladii uu ka dhintayna sabir Allah ka siiyo Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan ayuu ka dhuntay oo ka dhintay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel joogtay reer Puntland baa isaga tacsiyeena dhimashadiisa Allah u naxariisto qoyskiisa gaar ahaan si gaar ah ayaan ugu tacsiyeeynaa muddadii 5 sano anu xilka hayaan wuxuu la taliyay khaas xagga arrimaha amniga xiriir dhow oo waxaan la runtii aad u dhow oo wada shaqayn ah marka waxaan leeyahay ma dhimanay waa u dhuntay Allah u naxariisto إننا نمانت سوى الله نقوسي الماسنتي. راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان تاجنا وقبري. لو أرمود بهالك مناسب كأ إن ندعي إنه جنرال عبد الله إن إلهي سبحانه وتعالى وقبره يسون نوريو دمبه يسدافو جنة فردوسنا وجيو. annagana inay cibro noogu noqoto ilaahay uu noogu dambi dhaafo xaadiridaan aan soo xaadirnay waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala u rajaynaynaa in uu maanta jamcan faraha badan isu yimid ugu naxariisto salaadii janaasa iyo ducadii loo sameeyey eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna waxaan si gaar ah ugu tacsiyeynaynaa in uu ilaahay sabir iyo iimaan ka wasiiyo wuxuu ahaa halgamaa wax badan ka soo qabtay dadka Soomaaliyeed iyo Puntland taariikhdu way xusi doontaa annaguna waan xasuusnaan doonaa haddii ilaahaydan ka dhigo waxaan rajaynayaa dhammaan dadka reer Puntland iyo cid kasta oo la macaamulay oo ay wax kala gaareen inay cafiso waxaan insha Allah rajaynaynaa ciddii wax gaar ah u haysatana inay dawladda Puntland ay la soo xiriiraan insha Allah wixii inta ka dhiman waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu qabriga u waasiciyo qabrigana ونحريس كسيو جنة أو نحريس كسيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته